soo dhawaada saaxiibayaal halkan waa bogga aan idinkugu soo gudbino warbixinada kala duwan ee aad ku taamaysaan dhageysigooda. Jubbaland ayaa si joogto ah u soo saartay xirfadlayaal wanaagsan oo dhanka kubadda cagta kuwaas oo badi ka yaabsada marka ay u tagaan ciyaaro gobollada kale ee dalka iyagoo xaqiijinaya in weli maroodiyadu yihiin hoggaanka kubadda cagta ee dalka. waxaa jira kooxo dhalinyaro ah oo badi si qurux badan uga soo muuqda tartamadii kubadda cagta ee ay matalayeen gobolka sida Axmed Cabdi Cumar oo loo garan og yahay Axmed Deeqa waa joker ciyaari kara dhowr boos oo kala duwan kaas oo aan inta badan helin xusid iyo xasuustii uu ku lahaa matalaadda gobolka. waxaana muuqata in aan in badan oo ka mid ah xidigahan dan guud laga lahayn. sidoo kale waxaa ka mid ah Yunis iyo Fuaad oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee xulka kubadda cagta Jubbaland iyadoo aysan ixtiraamkoodii ay ku hogaaminayeen xulkooda si la mid aan helin. kuwaas iyo kuwo badan oo ka mid ah mashiinada aan laga maarmi karin haddana xirfadooda darteed ku waayay qadarintii ay mudnaayeen. balse warbixintan kuma eegayna caqabadaha ciyaartoyda guud ee Jubbaland ka haysta dhanka maamulka dhisan 10 sano ee lasoo dhaafay, laakiin waxaan diiradda ku saaraynaa wax ku ogow 10 ciyaaryahan oo sanadkan matalaya degmooyinka gobolka Banaadir si weyn uga soo muuqday kuwaas oo si cajiib ah bandhigyo uga sameeyay tartanka. si gaar ah aynu eegno dhowr xidig oo matalayay kooxo kala duwan oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. degmada Shibis waxaa matalaadeeda qaatay 2 ciyaartoy oo ka mid ah kooxda kubadda cagta ee JCC oo kala Kuku iyo Kalay oo ka mid ah xidigihii ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta ee JCC. degmada Dharkinley waxaa matalayay ciyaaryahan Cabdiyare oo loo garan og yahay Qaloonka oo u ciyaara naadiga JCC iyo Cabdisamad oo ka tirsan naadiga Gulwada FC. degmada Hodan waxaa matalayay 3 xidig oo 2 ka mid ah ay ka tirsan yihiin naadiga Dekedaha. degmada Waaberi waxaa matalayay Mursal iyo goolkiiba Dirow iyaga oo qaatay matalaadooda ka qaybgalka dhanka Jubbaland. degmada Yaaqshiid Golhaye Abwaanka ayaa toos isaguna u matalayay. haddaba dhammaan kuwan waxa ay si weyn muhiim ugu ahaayeen kooxahooda waxayna door muuqda ka ciyaari jireen matalaadda kulamadooda. si guud warbixintan ayay muhiimadeedu ahayd wax ka ogaanshaha xidigaha matalaya degmooyinka gobolka Banaadir. hase yeeshee si gaar ah aan diiradda u saarno Xaafid Yare iyo Kuku sanad ka hor waxaa laga hor istaagay ka qaybgalka xulka kubadda cagta ee Jubbaland waxayna sanadkaas wax cajiib ah ka sameynayeen tartankii ay ka qayb galeen. si lamida sanadkan ayay qaab ciyaareed wanaagsan ku qaadanayaan tartanka degmooyinka ee gobolka Banaadir. mid kasta oo ka mid ah goolal ayuu dhaliyay. gaar ahaan Xaafid ayaa kaalinta labaad kaga jira tartanka goolalinta ee gobolka Banaadir. ajeeda u faraxsan anigoo gaalay keena waxa loo gool u soo alxamdulillah deegankayga xaqaan ku soo horkari insha Allah sanadkan xarjinay aan ku guuleysana duu ilaahay yiraahdo. Xaafid Yare ayaa mid ka mid ah kulamada 2 gool ansixiyay isagoo bedel ku soo galay wuxuuna muujiyay wali inuu yahay hogaamiye dhanka weerarka ah. Xaafid mustaqbal ahaan waa mid ku wanaagsan kubadda cagta laakiin aan helin abaalkii uu ku lahaa iyo ixtiraamkiisii kubadeed. xidigahan oo la isweydiinayay sababta looga reebay sanad ka hor tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa noqday kuwo muujiyay xirfadooda aan indhaha laga qarsan karin. Jubbaland ayaana u muuqata mid sportskeedu u baahan yahay isbedel dhaba maadaama ay ciyaartoydu badi ka niyad jabeen ka ciyaarista Jubbaland. haddaba adiga i daawanaya si aad u aragtaa in ciyaaryahanada tayada leh laga taga qaarkood.